السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wararka shacabka YouTube kan maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa Jarmalka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka autism-ka la yiraahdo ama han noqdaan dadka bihiin dadka ah ama dadka lixdooda lixaad aysan dhameystirnayn. Haddaba Jarmalka qaab nooc ayuu dadkaas ula dhaqmaa sidee soo markaas dadkaas hadii ay markaa qof baahiyaha gaarka qaba uu wadanka Jarmalka yimaado maxaa la siiyaa muxuu u baahan yahay. hadday taa markay kugu horeysay ee bartan hore shacabka YouTube ka soo booqatid waxaan ku xasuusinayaa qaybta subscribe inaad inoo taabatid. Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada aad u ixtiraama dadka xanuunsan ama dadka lixdooda lixaad aysan dhameystirnayn ama dadka wadankan degan ay badanaa culays ka saaraan dadkaas in ay helaan caawimaad fiican. dawladdu in ay dadkaasi ay siiso lacago gaar ah oo loogu talagalay qofkaas haddii uusan soconayn xilliyada markaas fasaxyada waxa la sameeyaa lacag gaar ayaa la siiyaa oo markaas baabuur ayaa loo kireeyaa baabuurtaas oo markaas dalxiis ahaan loo geeyo meelaha uu markaas qofkaas rabo ama magaalada qayb kamid ayaa dalxiis loo geeyaa. qofka markaa uu waqtigiisa badanaa waxa lagu bixiyaa in markaas uu sida caadiga dadkan u nool yihiin oo kale oo maalintii ay u shaqo tagaan galabtii u yimaadaan oo kale loo sameeyo. qofka waa la wadaa waa la mashquuliyaa waxyaabo kala duwan baa loo geeyaa meelaha markaas laga shaqeeyo ama qofku gacanta wax ka qaban karo ama bulshada kale la dhex geeyaa. waxa la isku dayaa in markaas qofkaasi waxa uu qaban karo ama waxa uu jecel yahay in uu sameeyo oo xilligaas sameeyo. marka dadka caadiga ah marka socon kara laakiin qofku si ay markaas ama lug ama waxyaabo noocaas ay wax ka soo gaareen oo kale waxa la sameeyaa dadkaas waxa la siiyaa tigidyo free ah oo markaas qofkaasi uu tareen ku rabo ku raaci karo magaalo walba ku taal wadanka Jarmalkan uu ku tagi karo. tigidyadaas waxay u badan yihiin kuwa markaas billa ah oo markaas bishiiba hal mar la siinaa waana hal sano ayay markaas tigidiyadaas la siinaa. bil walba waa loo soo diraa qaarkood qaarna halkii sanaba mar baa la siiyaa. marka tigidiyadaas qofkaas markaas waxa markaas raaci kara oo si free ku raaci kara hal qof ama laba qof. marka waxa loogu talagalay lacala hadii uu qofkaas ama xanuun qabto kale in qof kale uu caawin karo oo markaas uu la raaci karo tareenka ama baska uu la raaci karo. marka sidaas ayaa loogu talagalay. marka qofka hadduu xanuunsan yahay tigidhadaas ayaa la siinayaa tigidhkaas ayuuna meeshu rabo wadanka ku aadi karaa. sidoo kale dhanka waxbarashada kale qofka haddii uu yahay qof dhalinyaro ah ama qof jecel inuu wax barto kale waa laga caawiyaa oo waxbarasho ayaa la siiyaa. haddii uu yahay qofkaas qof indhala meelaha waxa la geeyaa dadka indhaha marka waxbarasho ayuuna helayaa oo markaas wuxuu noqonayaa qof sida dadkan caadiga u nool oo kale la mid ah ayuu noqonayaa. qof dhagal ah hadduu yahay meelaha marka dadkaas wax lagu bar ayaa la geenayaa marka sidaas marka nolosha sidaas ayay u soconaysaa. marka waxay dadku isku dayaan wadankan in qof walba oo baahiyaha gaarka qaba uu la mid noqdo una noolaado sida dadka kale ay u nool yihiin haddii asaga noloshiisu ay saba ka sii fiicneen. ixtiraam aad u weyn ayaa la siinayaa qofka baahiyaha gaarka qaba sababtoo ah qofkan iskuma filna marka waa inuu caawinaad fiican helaa. haddaba muuqaalkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. muuqaalo kale intaa ku kulmi doono waxaad ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.